wadanigu masexdo wadakama waato wakacadawga wiiqo wixii isagooye wadkii gumaystaha weeye walwaalka beesha weeye wadaa jir doonaa weeye waa wadnaha dalkiisa ilaahay baa mahadle marka hore isu kaan keenay innagoo nabada innagoo xor ah innagoo cidna ka baqaynin innagoo ra'yigeenna aan maanta cidna aan uga baqaynin ilaahaasaa mahadle ina aynu ku shukriynana waa waajib weeye haddii aan nicmada garan weyna ilaahay waa inaga qaadayaa intaa kadib reewar dheer aad iyo aad baan idinku mahadinhaynaa sida qiimaha badan aad hogaamintiinna iyo halgankiinna iyo qadiyaddiinna aad u qadariseen waxaana ka curdaaraynaa mar labaad taagnidiinni faraha badnayd iyo rafaadkii qadiyaddan darteeda aad ugu taagnaydeen ilaa saaka subaxdii intaa kadib runtii annagu ma qariibsanayno reewar dheer inay saa sameeyaan waxaa laga yaabaa dadka qaarkii inay ama intooda badanba ay yaryar yihiin ama soddon sano wixii ka weynaabaa laga yaabaa inuu wardheer yaqaano wardheer waa hormoodkii halganka waa magaaladii ugu horraysay ee bilowday difaaca qadiyaddeeda ururka inta la aasaasay waxaan idinku celinaynaa dadka waaweyne way la socdeen waana kuwii difaacay laftoodaa fadhiya laakiin si ay dhallinyaradu u ogaato magaalada wardheer waxay ahayd 25 sano ka hor iyadoo jabadda waddani xoreynta ogaadeynaya wadda halgankan oo kale ah oo nabadgelyo silmi ah tii difaacday bay ahayd qadiyaddeeda iyo hoggaaminteeda guddoomiyihii wakhtigaas allah u naxariistay sheekh ibraahim cabdalla oo kormeer ku maraya waddanka wakhtigaas oo aftidii la rabay in aftidii la qaado ayaa waxaa dagaal ay kula kaceen nimankii TPLF halka joogtay waxay weerareen guddoomiyihii iyo waftigiisii reewar dheer dhammaantood rag iyo dumar iyo ciyaal umayna kala hadhin dad badan oo taariikhda ku haysan baa ku shahiiday qadiyaddaasi runtii waxay ayna ahayd darbaaxadii ugu horraysay ama mesajkii ugu horreeyey aan u dirraday ahayd cadowga waxaa la rabaa inaad sidiinni aad qadiyaddiinna u taagnaataan 25 sano ka hor haddii aad difaacdeen guddoomiyihiinnii waxaa la rabaa maantana inaad qadiyaddiinna difaacataan oo jabadda waddaniga xoreynta ogaadeen ay horumar u tahay jabaddaas oo ah taa aan ka warramayna wakhtiga iyada aad isu taagteen runtii sharaf baad ku mudnaydeen ilaa haddana qadiyaddiinni baad u taagantihiin jabadda waddaniga xoreynta ogaadeen runtii waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo oo kale waa jabhad runtii bartay caalamka iyo cadowgeeda iyo saaxiibkeeda labadaba waxa ay bartay halganka sida loo dagaalamana way bartay waxaa kaloo bartay waxa la yidhaha dimuqraadiyadda waxaad la socotaan jabadda waddaniga xoreynta ogaadeen inay tahay jabhadda keliya ee iyadoo xabad ku jirta oo dagaalamaysa qabsatay shirweynahaasoo loo doortay guddoomiyihii hadda xilka ka degay lagagana wareejiyey guddoomiyihii hore ee aan ka sheekaynayna ee wardheer difaacday taasi waxay ahayd risaaladii ama masajkii ugu horreeyeen ee loo dira cadowga iyadoo xabaddu dhacaysa ayay shirweyne qabsatay shirweynena waad garanaysaan culayska uu leeyahay arrintaasi waxay ku tusinaysaa dimuqraadiyaddii koowaad ka hor shirweynihii waxaa ka horreeyey garbo laakiin kaas nabad buu ahaa kan dagaal baa lagu jiray iyadoo dagaal lagu jiray ayaa guddoomiyihii laga guulaystay in uu hambeliyeeyey guddoomiyihii cusbaa halkii baa laga sii waday masajka labaad ee dimuqraadiyadda aynu diray wuxuu ahaa guddoomiyihii dagaalkaas lagu doortay 21 sano si markuu u hogaaminaya halganka si sharaf ah ayaa wuxuu 2 toddobaad ka hor ama shirkii hadda goday waxa uu dhigay xilkiisa isaga oon cid ka qaada jirin ayuu wuxuu u dhigay si uu ugu baneeyo ama uu fursad ugu siiyo hogaaminta cusub uuna u baray adduunka iyo Etoobiyada oo weligaa ayna dimuqraadiyadda ka dhicin inuu baro isbeddelka waxa la yidhaahdo isbeddelka haddii aadan lafahaaga ka bilaabin cidda aad isbeddel ka rabtana isbeddel samayn mayso
taasina waxay ahayd runtii message-kii labaad ama fariintii labaad ee aynuu diray cid walba. kii saddexaad wuxuu ahaa markuu guddoomiyihii hore uu xilka ka degay waxaa jabhadda waddanka xoreynta ogaadeenaya hogaaminteeda cusub ugu tartamay laba nafti hore oo kala ah cabdiraxmaan sheekh mahdi maade oo guddoomiyaha hadda soo baxaya iyo mudane axmed yaasiin sheekh ibraahin oo hadda idinla fadhiya ayaa ugu tartamay si xor ah iyagoo ayna wax ajnabi joogin iyadoo wax dhaqaalaha lagu bixinaynin iyadoo cid xataa jabhadda waddanka xoreynta ogaadeenaya shacabkeeda waxaan hayna ayna soo faragelin. tartan xalaala waa ka dhacay. tartankaas waxaa ku guulaystay guddoomiyaha cusub ee hadda mudane axmed yaasiinna waxa uu dhigay wuxuu fariin labaad buu haddana u dhigay afraad ayuu wuxuu u dhigay cadowga iyo nasteex iyo dhammaantood wuxuu halkii ka caddeeyey oo uu gacan qaaday guddoomiyihii cusbaa wuxuuna halkii ka ballan qaaday inuu la shaqaynayo halgankiisana uunay ugu tartamin inuu mansab ka helo ee ugu tartamayey ummaddiisa inuu badbaadiyo saaxiibkiina uu ku soo baxay. waxaa la rabaa marka risaalooyinka aynu ummadda kale u dirayna innaga lafteenna waxaa la rabaa inaynu fahanno jabhadda waddanka xoreynta ogaadeenaya waa taas. waxaa la rabaa marka waxaan rabnaa in ay risaaladaasi ama fariintaasi cid walba gaadho oo haddii berri hadduu la yidhahdo aynu ku guulaysano waddankeenna maamulkiisana sidaas umaan rabnaa inaan dimuqraadiyaddaas iyo xorriyaddaas aan insha allahu tacaala aan ugu maamulno waddankeenna. marka intaa marka laga tago oo runtii aad muhiim u ah la rabo inaad hoosta ka xaqiiqdaan yacni fariimaha siyaasiga ah ee dimuqraadiga ee jabhadda waddanka xoreynta ogaadeenaya iyadoo halgan ku jirta oo jabhad ah ma ahayn dawlad ayay fariimahaas oo dhan dirtay. fariimahaas waxaa la rabaa shacabku marka inuu ku diirsado ay qadiyadooda garab istaagaan inay dhiirigelin noqotaa la rabaa oo halkoodii ka sugadaan halgankoodii. haddana waxaynu gallay marxalad cusub oo halgankii ah oo 22 sano kadib 25 sano oo xabadi socotay iyo ka hor 100 sano aynu halgan hubaysanaya mid siyaasiga ku jiray. waxaa la rabaa inaan halgankan cusub u diyaar garowno. sideen ugu diyaar garoobaynaa marka? waxaan ugu diyaar garoobaynaa kow midnimadii madax axmed yaasiin ka hadlay inaynu hoosta ka xariiqno waayo midnimadu waxa ay furo u tahay wax kasta oo ummadda bini'aadanka ay ku horumarto oo halganku kow ka yahay oo horumarku ku xigo ayay u tahay ay furo u tahay. taasi waa kow waxa aynu ku gaari karro ama shaqooyinka hadda inoo yaallay kow ka tahay. laba waxa weeye maanta maadaama oon dhiig daadan haynin oo inaan xabad ku jirin waxaa la rabaa yar iyo weynba inay waxbarasho diyaar garoobaan. dhammaanteennaan qalin ka qaadanno waayo calaamadeennu qalin iyo qori bay ahayd qalinkii baynu hadda u bedelay. waxaa la rabaa inaynan odhan hooyooyinka iyo odayaasha waan gabownay dhallinyaradu waa waktigoodii dhammaanteennaan qalin ka qaadanno inaan wax baranno. waxbarashadaas marka maxay iyaduna fure labaad u noqonaysaa inaynu xuquuqdeennii hadda laga sheekaynayay oo kow ka tahay waxyaabaha nolosha bini'aadanka u baahanyeen saacaddan aynu u baahannahay iyo hadafkeenna fog oo ah xorriyadda. labadaba waxaan ku gaadhaynaa inaynu wax baranno. cadowgeenna iyo cid walba waxaynu kula tartami karraa waxa weeye waa aqoonta. aqoonta waxaa la rabaa waa halganka cusub aan rabno hadda inaan qorigii ku bedelno. haddii marka aynaan qalinka dhammaanteen qaadan waxa weeye halgankeenni dee dhaawac baa gaadhaya waayo qori ma wadana maanta. ta saddexaad waxa weeye inaynu oo aqoonta lafteedu furo u sii tahay waxaa la rabaa sidii madax axmed yaasiin buu iga horreeyey xuquuqdeenna waa inaan barannaa. waa inaad barataan ood ogaataan idinku inaad ka tihiin sayid waddankiina nin walba meesha jooga reewa dheer magaaladooda iyagaa asiyaadka ah marka iyagaa wax walba ka ah. iyagaa la rabaa ninka maamulka ee guddoomiyaha ama gobolka ha noqdo ama degmo ha noqdo ama maamulka dhammaantii waxaa la rabaa inuu shacabka ka cabsado emaa inay shacabka ka cabsadaan waayo shacabka ayuu matelayaa. shacabka ayaa halkan loo keenay. shacabka ayuu mushaharka ku qaadanayaa. mushaharku waxa weeye waa canshuurta idinku aad bixinaysaan. waxaa la rabaa innaga oo nidaamka dawladnimo ilaalinayna jabhadda waddanka xoreynta ogaadeenaya mar walba waxay caddaysaa inay maamulka garab taagan tahay waana sidii baan u garab taagannahay. laakiin taas kama dhigno inaynu shacabkeennu ay garan waayaan xuquuqdooda. adigoo maamulka sharciga iyo sharcigaba u hoggaansamaya haddana waa inaad ogaato adigu inaad leedahay waddankood hantidaadii ay tahay. dhaqaalaha caafimaadka loogu talagalay waa dhaqaalihiinnii. ka waxbarashada loogu talagalay waa dhaqaalihiinnii. ka jidadka iyo waddooyinka loogu talagalay waa dhaqaalihiinnii. ma aha dhaqaali guddoomiyuhu leeyahay
ما هذا قارئ دولة هاي أما هير فدرالها أما هير كلها وحالة مركز هلجن كأصولين هذا قلبي كو كتاي إنه شعب كوجاده حقوق ديسة حتى أن حقوق ذا نقدر نجلسين جلسنا نقون هسا جلسوا ما كلية كحبت كلية سودجا وحاول مرحلة كستو تشوك تو حاول جلسين ما ذا اللي نجربها ما أنت واحد لسه عطان إثيوبيا سلا لو وسعتان كل كره وقومية اللي سوق خفيها هاي طبعا أنت روي تناروجين عيد تشوفين يسمى جرتو تكرهي إنك جمالي دنا عوض بحث هذا السماينا يوتكيسي عيدكيسي وحسنا يدور ديسنا وأوكار ورما واتنا تو حكامين يلا حكامين السنة هذا وقالين حزبين أم حارة ووقت نيونا قوميات ولا قوميات حتى لسه خصنا فرع بدنا اللورنجر قوميات كونفورت إثيوبيا فهذا كلا قوقاية والله سعتان سلامين النقطة كل عصب مركا حتى الكلمة سين قنا يساعي مسؤول تقل متعين دبل الله عليه هالدولة يا هالنظام يا هالحزب ما يالي نتاس جواتنا ورقة وعطي سيادة ما نعطين هنا لكن وعي عدة مركة ديدي سي ما يالي نوران كرتا وعدة كل من ما يالي إلى لسا فهنت وحاي تاي هلقن كذا فهنت خيرات كذا يانتي كذا فهنت إلى شطا سومالنا وحكوها في سنة أنكو فكر ما أنت والوقتين تودي القومية هذو أورما وإلى كنت المليون يا القياسة أم حارة 6 مليون بيجي عجينا صدور إلى 10 مليون وي iyagoo noocaas oo kala diina oo kala dhaqana oo laga yaabo xataa inaan hal af lahayn ayay mid yihiin maxay inagu hal qoys inoo diidaya midnimada maxay inoo diidaya idinkaan weydiinaa wardeer waxna kala qaybinaya jira ummadda Soomaaliyeed wax ka hooseysa ku fikirina haddii kale waa la go'aysan ama laba mid waa inaan aynu diyaar garoon in la go'aysto iyo inaan mid noqono madaxana kor noqdo aad iyo aad baan idin salaamayaa in badan baad fadhideen waxa weeye saak salaad subax baad taagnideen waa daasheen intaas baa inaan hadalla runta dhibida ku ahayd aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad bay ku mahadcelinaynaa waxaan isku ognaa waxa weeye waa midnimada iyo qadiyadeena iyo geesinimo aan qadiyadeena marxaladda cusub